الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تبنات هي كتاب كأن حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. شيخ وحو كجرا تلمامه جنة iyo waxyaabaha ku jira wuxuu ka hadlayaa khiyaamu ahli aljanna dadka ahlu jannada ah teendhooyin ay ka dhisanayaan beeraha ilaahay uu siiyey agteeda iyo calaa shawaati al-anhaar iyo webiyaasha dhinacyadooda. rabbi wuxuu yihi xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam. alkhiyaam waxa weeyaan waa dhismo ka bedelan baa layidhi qurafkii hore iyo qusuurtii iyo dhismayaashii dheerdheeraa aan ahayn, bal waa kuwa laga dhisto beeraha dhinacyadooda, webiyaasha dhinacyadooda, ilaan raaxa dadkan loo dhammaystiray. rabbi subxaanahu watacaala waxyaabaha badan aan sheegna waxaa ka mid a dadka lagu abaal mariyo dadka habeenkii tukada qiyaamuleylka xilliga dadku ay hurdaan, oo rabbi uu leeyahay tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfan waطamacan wamima razaqnaahum yunfiquun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى وحود سيا جنة وحيابها soo sheegnay dadkaas habeenkii tukada dhinacoodu dhulka uu ka dheeraado iyagoo rabbi khawfan wa tamacan. waa labadii kelimaan ku bilowna kitaabka ibnu qayimna waxyaabihii u taaliifay ka mid ahaa cabsi ay ilaahay subxaanahu watacaala iyo ciqaabkiisa ka baqayaan, iyo tamac ay ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa iyo naxariistiisa ay raadinayaan. waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyeyna uu ku arsaaqay nafina ma oga baa layidhi waxa uu alle u qariyay subxaana, oo maaragtay ilaahay subxaana indhuhu ay ku qabowsadaan. waana waxyaabihii ay sameeyeen ayaa asbaabteedii lagu siiyaa. waa kii aan lahayn rabbi subxaanahu watacaala jannada tafadulan iyo isaga raxmad ka ahaatay baa lagu galaa, laakiin darajaadka jannada ayaa lagu helaa. darajaadka jannada ayaa lagu helaa acmaasha la kasbaday iyo waxa la shaqaystay, sababna way u noqdaan jannada gelitaankeeda. bal waxaad fiirisaa rabbi subxaanahu watacaala waxa uu u qariyey iyaga oo cidna ayna ogeyn, iyaguna waxay qarsadeen cibaadadoodii xilli dadku ay hurdeen ayay iyaguna sameeyeen. rabbi subxaanahu watacaala qalaqii iyo khawfkii adduunka ay ku jireen oo alla ay kaga baqayeen wuxuu ugu abaalmariyey quratu lacyuni fi ljanna, inay jannada dhexdeeda iyaguna ku qabowsadaan indhahooda ayuu alla ku abaalmariyey. ayib, jannada laga waramayo alla wuxuu yihi fiiha jannada markii laga waramay anwaac يعني أنواع الفاكهة أفضل أنواع الفاكهة، يعني فواكه iyo waxyaabahan lagu raaxaysto faakihada iyo fruudka iyo khudaarta iyo wax walba ayaa ku sugan. fiihima min kulli faakihatin zawjaan, yacni waxaa ku jira faakihada wax walba laba nooc ayaa uga jira. labada janno ee halkaa lagu xusay fi suurati araxmaan, laba arrimood suuratu raxmaan iyo suuratu waaqica si aada isugu eg bay uga warameen darajaadka, yacni dadka saabiqiinta ah iyo dadka asxaabulyamiin iyo asxaabu shimaal, saddexdoodaba way kaga warameen. marka laba janno ayaa lagu sheegay halkaasoo fiihimaa faakihatun wanakhlun warumaan baa mid la yidhi, midna waxaa layidhi fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan. yacni waxaa weye dadkaas waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani laga bilaabo waxaa aada loo tilmaamayaa sifaadkii ay lahaayeen labadaa janno. mar hore waxaa li fiihimaa dadkaas muqarabiinta ah fiihimaa caynaani tajriyaani, waa laba ilood oo soconaya saa u boodaya, yacni u soconaya. tajriyaani waa iska dureerayaan, way socdaan. fawaakihdana waxaa layidhi min kulli faakihatin zawjaan, wax kasta laba nooc ayaa oga jira ayaa la yidhi. marka waxaa lagu tilmaamay tan dambe iyada min duunihimaa jannataan, waxaa la yidhi waxaa iyaga ah fiihimaa caynaani nadaakhataani, laba ilood oo saa u boodboodaya ayaa la yidhi. fawaakidiina fiihimaa faakihatun wanakhlun warumaan baa la yidhi. meesha tii hore laga yidhi wax walba laba nooc, marka way sii kala sareeyaan waxa labada qaybood
way sii kala sareeyaan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku arsaaqayaa dadka anwaac alfawaakih qaybaheeda dhan waxay ka rabaan ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku arsaaqayaa. alla subxaanahu watacaala jannadiisa inagu arsaaqo iyo waxa gudaheeda ku jira. wajazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum.